أنه ولله الحمد بشي لبي تبنات بين كتشرنا حلقا أو كالاسيدا طقسيga iyo lagu yaqaano cimilada dayra dhaaf bay ahaan jirtay shaakada iyo koorar iyo go'yaal baa la xidhnaan jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala roob aan waqtiyadan dhowba la arag labiya tobnaad baa roobku inoo da'aya labiya tobnaad baa roobku da'aya waa maalin waagi koob iyo lixdankii mid la mid ah maalin dhowad aad arkayseen cirka oo dhan maalintii oo dhan waa da'ay markaasa dhulkii barwaaqoobay oo ilaahay biyo iyo baad iyo ajaa'ib ilaahay dhigay subhanahu wa ta'ala geeli iyo caanihi iyo lo'di dukaankaad gashaaba caana dheeyay Allah bal habeenkii markaad baxdo dariiqiyada caanihi ba saa u tuban weli taariikhda intaan sheekada ku hayo sida ay maanta caana ku tahay mantiqadani kuma noqon weligeed geeli caani ba saa u yaala meel kasta iyagoo mool garaysan iyagoo jirikaama ku jira baddaaway maalintii barqadii baa koombada dhayda ah 15 kun oo shilin laga siinaya ama 14 kun baad ku helaysaa iyadoo la kala siisanay ana indhayga saaro arkay soo jeedid barwaaqada ilaahayna si subhanahu caafimaadka horumarka ganacsiga guriyaha dhismaya dum caruurta iyo inoo dhalanaysa inta guursanaysa nabadgeliyada wax badan ba ilaahay inoo dilaaci ilaahay markuu waxayna siiyay nicam ah xagay ka yimaadeen ilaahay baa inay siiyay ma bikum min ni'matin fa min Allah waxaad haysataan nicma alle xagiisa idin ka yimaadeen la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adaabi la shadiid laakiin dadka inta shukrinaysi waa yaraat ilaahay nicmadiisi iyo barwaaqadaas la haystaa magaalada waxa la yiri bandhiga buugaagta lagu qabanaya bandhigi buugaagta lagu qabanaya tabeelooyin baa la dhajiyay waaweyn arintaasi waa arin horumar ah in bandhig dadkii wax qoray ee maskaxdooda tuujiyay ee deegaanka u dhashay in ay soo bandhigaan aqoonta ay hayaan ee ay qoreen oo la dhiiri geliyo yaa lagu qabanayaa baa la yiri ma aha micnaheedu in bandhigani uu yahay bandhigii ugu horeeyay ee buugta laascaanood la soo bandhigo mana aha maalintii ugu horeysay ee dadka wadankani degan ay wax qoraan oo soo bandhigaan intaas oo bandhig baa magaalada ka dhacday laakiin kani muxuu kaga duwanaa kii hore wuxuu kaga duwanaa dadka martida aba kuwii hore kaga badnaa kan marti badan baa kan ku badnayd dad badan baa loo yeeray oo hay'adaha qaarkood iyo dawladda iska maamulka iska kaashanay taasa marka makhluuq fara badan baa looga yeeray wadanka gudihiisa iyo dibadiisa laakiin buugaag la qoro la soo bandhigay tii u horeysay ma aha intaasoo dhalinyaro wiilal leh oo gabdha leh oo dakaatira leh oo culimo leh oo aqoon-yahan leh ayaa soo bandhigay buugaagtooda oo goboladan in xiga ku soo bandhigay Garowe oo Muqdisho ku soo bandhigay ma kan kii u horeeyay ee laakiin golaha golihii ka weynaa martigelintii waa ka badnayd arintii markii aanu maqalnay ka culimo ahaan annagu cidii mas'uulka hawshan ka ahayd ee qaban qaabinaysay dadka martigelisay maanu la xiriirnay si toos ah walillahi alhamdu mas'uulkii u sareeyay baa la kulanay waa la hadalnay waxaan niri waa arrin wanaagsan bandhigan waa arrin fiican oo horumar deegaanka iyo dadka waa dhiirigelin fiican in la soo bandhigo dadkii maskaxdooda tuujiyay ee wax qoray la soo bandhigo wixii khaldanaana la eego wixii saxnaana la eego aad bay arrintaasi u fiicanta laakiin بكل احترام وحي معاصئة وكدقينا وحاجرة لما قضب إن لك لقاضة أباها بندق فنات إيا بندق بوغاقات لبيك ليهين بندق قاسي هالنقضو بندق لغصو بندق إيا بوغاقتا إيا وحي القري oo aqoon-yahankii isugu imanaya oo nin walba buugii uu qoray haduu keeno ka warbixinayo cidii wax ka hadlaysa faa'iideeyay wax kale khalad wuxuu leeyahay ka hadasho horumarka iyo aqoonta laga hadlo laakiin aanu noqon bandhigaasi bandhig kale inaan lagu ladin oo ah music iyo heeso iyo tumasho iyo raqraqlayn inaan lagu darin magaaladani waxa ma taqaano waa ka caafimaad qabtaa bandhig faneedyadeedii hore laguma soo bandhigi jirin waxa soo kale waxaan aad kaaga codsanaynaa arinta in laga joojiyo arinta codsiga ah baan mas'uulkii u sareeyay kala kulanay oo kala hadalnay waa soo dhaweeyay waa saxbu yiri waxoogaa baa kulli qaansan buu sheegay
oo dhaantadu iminka heesaha iyada ka sii xun ma hateenu naqaanay wala siqadii aynu naqaanay maaha waa bahal heesaha hadda ka sii xun oo music leh oo qofku marna dhulka taabanaya marna hawada tagayo oo rag iyo dumarkii isku xidhan yihiin oo la wada dad wax badan oo dayacani ay jiraan qaawanaansha oo sidaa la isu dhaxboodayo xitaa way ka marqaan culus tahay tan heesaha bayda ka marqaan culus way ka marqaan culus oo dadka waxaan ku shaqaystaa si aanay u raqraqlayn tan kale bay u raqraqlaynayaan arrinta in laga joojiyo oo aan magaalada sunna xun loo bilaabin oo dadkaas magaaladan khayr badan baa lagu ogyahay baan codsi aad u dheer cod dheer ku bixinay kullay in arrintaas aanu jeclayn mas'uulku noo sheegay in martida qaar ay waxa la socdaanna wuu sheegay ka dadaal baanu ku nidhi booliska oo anshaxa iyo adaabta iyo horumarka deegaanka bulshada ka shaqeeya ayaanu arrintii kala hadalnay hadda wax la soo bandhigay ma jiraan ergadu wali ma iman xitaa inay mas'uuliyiintii u sarreeyay booliska xil arrintaa iska saaraan oo aan magaalada arrintaasi aanay ka dhicin mar labaad baan waxaan ka codsanay mas'uuliyiintii u sarreeyay bandhiga buugaagta in kulan ballaaran aan isugu nimaadno subaxii arrintu dhici doontay mas'uulkii u sarreeyay wanaga mashquulay mas'uuliyiintii ka hooseeyay runtii rag khiyaara dhammaantood ahaa waa kulannay si fiican baan arrintii isula fahanay magaalada in laga ilaaliyo wixii diinta iyo dhaqanka iyo dadnimada ku xidhan arrintii lama inkirin in meesha ay joogaan fanaaniin baa meesha timi fanaaniintan waxaanan kala garanaynin ma iyagaa meesha iskood isu soo casumay mase waa loo yeedhay fanaan haddii loo yeedho kaalayo hees weeye fadhiyo biskud iyo xalwad cun ma aha dee wabiyacaab waa kaalayo hees haddii loo yeedho waa inuu heesaa ilaa waa shaqadiisii in wax kale ma yaqaan aniga haddii la ii yeedho waa inaan dadka wacdiyaa fanaanka haddii loo yeedho waa inuu heesaa dee ilaa shaqadiisii weeye marka haddii in loo yeedhay inay yimaadeen anu ma kala garan karo wallahu aclam barnaamijkii meeshii waa dhacay wallaahi alxamdu bandhigaasi ha suuro galo dad badan oo aqoon-yahanaa meesha isugu yimaadeen laakiin munkar baa meeshii ku lamaana munkarkaasoo ah aantada heesaha iyo meesha waxa ka dhacayay ama ha la tunto duhur dabadii ama casran habeen ha la tunto miidiyaha taalla magaaladii khayrka iyo diinta iyo daraawiishta iyo jihaadka iyo oo gaalo laga kiciyay arladan waa hore waxaa lagu yaqaanay mise dad saa u boodboodaya meeshii ka soo baxay waxa ayaan darro ah mas-uuliyiintii qaarkood oo ciyaartii la tumanaysa haddana oo kula dhex jirta ummadda u sarsaraysay arrintaasi waxay noqotay arrin yaab leh anigu waan isku dayay meeshii waan tegay inaan ka hadlo oo kelmadda qayb baan ku lahaa markii kelmaddu bilaabatay qur-aankii la akhriyey kelmaddii labaadna la furfuray mas-uuliyiintii gobolka ka hadleen arrintu socoto markii garaadadii hadalkoodu bilowdmay oo aan isla meesha waxba ma yaalin haddaba dhammaatay baan iska soo tago salaadii duhuriye ku dhaafi maayna kulley kelmaddii ku dhaaftay salaadii duhuriye ku dhaafina masaajidkan iska soo aada anigu laakiin miidiyaha marka laga arko waxaa la moodaya qur-aankii marka la akhriyey maxamed halika soo kaco marka la leeyahay inaan qofkii ku xigay ahay baa la moodaya dee manihii qofkii ku xiga maan ahayn 6 iyo 5 iyo 7 markay maraysa baan iska soo kacay anigu baan iska soo kacay waqtigii inuu dhacan ka baqay waan iska soo kacay salaada taa micnaheedu waxa weeye waa soo dhawaynaynaa haddaanna culimada iyo odayaasha gobolka wixii horumar oo gobolka oo dhan ah buuggaas iyo bandhigiisa iyo dadka maskaxdooda tuujiya dhiirigelinta waa sax arrintaas waxaanan laakiin marnaba ogolayn maadaama ilaahay ogolayn wixii munkar ay lagu lamaanayay ma ogolin raallina kama nihin cid kasta oo barnaamijkaas munkarka ka qayb qaadatay waxaan ugu baaqaynaa in Allah u toobad keenaan ilaahayna u soo noqdaan Allah u toobad keenaan subhanahu wa ta'ala oo munkarka alla looga toobad keeno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala looga xishoodo aad iyo aad baan arrintaa ugu baaqaynaa munkarka iyo macaasidu dhibta ay leeyihiin ilaahay haddii laga caraysiyo ilaahay muxuu yidhi falammaa asafuuna intaqamna minhum markay naga caraysiiyeen waa ka aargoosanay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala war ma inaan ilaahay naga aargoostaa doonaysaa war ilaaha waxaa isugu kaaya qoofaleen nicmo ah haddaynu ka caraysiino war soo ilaahay naga aargoosan maayo soo xooluhu dhammaan maayaan soo islaamuhu dhicin maayaan soo roobku yaraan maayo soo colaadi iman mayso
وحلا وحي علاد قبل ككتشري بمرقلا نلقى بختي يا بختي الله إلهي با بختي سبحانه وتعالى صمدي بالله ينوفري دشي دمر كافرنتي عصبت الكاتك تو طوان باكو مليس وفي نعمة إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحري فلما آسفونا مركي نقع رئيسيين انتقمنا منهم وكأر قوصني بأليه سبحانه وتعالى ورإلهي اسكمع لنكرنا الله وطوبت كينو الله وصول نقلنا سبحانه وتعالى دقموينك يدلك وحو كنا وراض إلهي باقي حي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء dadka degmooyinka degan iyo magaalooyinka haday Allah ka cabsadaan subhanahu wa ta'ala rabbigood ka yaabaan samada rizqeedii abwaabteedan u furayna buu Allah subhanahu wa ta'ala markaas ummadu si fiican u noolaanaysa walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun laakin waa dafireeno waa ilaahay diintiisa shariicada bay ka tageeno wixii ay sameeyeen ba ilaahay ku qabtay maxaa ka dambeeyay afa amina ahlul qura bal fiirs aayadkaas أفأمن أهل القرى دتك الدجموين كي مجالوين كدجن مآمن بيكن قدين وفيرسو أن يأتيهم بأسنا بياتا باس كيجا يعقاب كي عذاب كيجو إنه يمادو هبين كي يجو هرد إنه مره وهم نائمون يجو هرد بالله سبحانه وتعالى هبين كي إنا مره ومدي الصوت ميريه ملك استلقى داوني وحكس دتك وضي سميان إنا مره وعذاب كم مره مياني كبقين بأليه سبحانه وتعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ما آمن بيكن نقدين بأسي يجو إنه يمادو برقدي يجو عيارة يطمنية ما آمن بيكن نقدين بأليه سبحانه وتعالى وجد أفأمنوا مكر الله إلهي مكر يسمى آمن بيكن نقدين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قفكو هديئو أدركت إلهي أنتو النعمي معاسنا وكتشرو والله الدغيا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين بأليه سبحانه وتعالى أنت أسعوبة أنت إلهي إنه قطبت كأنه سبحانه وتعالى إلهي مخلوقات كيسا إساقا معمولية إن لو عاصي ألا مؤقلا سبحانه وتعالى حدان صور يوركيغا وحينو إسحسوسين إنه وحكستو مصيبة إنه كي مادة إلهينا كما قردنا إننا إسوكينا إننا إسوكوا عن مصائبته هذه مصيبة إنه كنت ماد إلهي بلايها إنك هاي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحيد كل عين مصيبة إذن كقعمين كل شقيستي ركعت دي لبعض آيات كان كنت كني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي وناك هذا شان إلهي حق يسويدين كيمي وحي كلنا معاصي الله ماذا إذن كليمي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات كلا أحد الله سبحانه وتعالى إن قفك كحشوضه أو أمدة هدي الله كحشون وإذ عقاب مضان كريسا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون زمن نزول كآيات داس بخاري حديث كجابر مركي آيات داس سودك تقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم اللي واك أو إنه عذاب حق السرئدين ككينو أي النبي استاغي أعوذ بوجهك إلهي وجهك كان مغنقليا إلهي عذاب حق سرهاني ككيني سوما جيدد أو من تحت أرجلكم أما حق وسين عذاب لدين ككين عقاه وستو دبا أعوذ بوجهك إلهي وجهك كان مغنقليا هنقا كيني أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أما إن لا يسكو كين ديرو بدميت كين كلا وديلو وقفاشو وإسدا وعدان إسباب إيسان هذه أهون أو أيسر تنا سهلا أما فضود النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس هو حديث صحيح حديث سعد بن أبي وقاص رسول كان لسعني مقال المدينة صوغل مساجد بو رسولك ريبني معاوية إليهين بو كبيري والله قالني لما ركعوا سنة أبو تكري أنقنا والولد تكني وحوب الله فناجى ربه عز وجل طويلا إلهي بو إن بضن بري سبحانه وتعالى ولا فقيه مركي ودعادي مكو دم يستي ورسولك عبار وكتر صباحي أيا وحوي سألت ربي ثلاثا
rabbigay saddex arrimood baan weydiistay waxaan weydiistay ummadayda biyo iyo daad wadaha fiya oo ay ku rogmadaan ilaahay inaanu ku sallidin fa a'taaniha alle waa isiiyo waa ka badbaadiyay ma dhacayso ummadayda oo dhan hal mar in daad rogo oo baabi'iyo alle waxaan weydiistay ummadayda abaar wada camimta inaan ilaahay ku sallidin alla waa iga aqbalay waxaan weydiistay ilaahay inaanu isku dirin ilaahay taa waa iga diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii marka macaasida iyo dunuubtu ummadii hore waa laga xaaqi jiray adduunka laakiin ummadatan ilaahay waa u naxariistayo iyada la isku sallidaya way iskhilaafaysa way islaynaysa way isdhaawacaysa way isqafaalanaysa dhulkoodii hantooda la kala wareegayaan noloshoodii baa baaba'aysa balaaya alla u keenaya haddii ay macaasida iyo xumaanta alle ula yimaadaan subxaanahu wa tacaala rasuulku ilaahay buu ka magan geli jiray fitanka allahuma inni acuudu bika min alfitani ma dahara minha wama batan allahuma inni acuudu bika min mudilaati alfitan wuu nabigu oran jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh dariiqaynu kaga badbaadayno ilaahay ciqaabkiisa waxa weeye inaynu noqono ummad dareen leh oo wanaaggii faraysa oo xumaantii celinaysa oo diintooda u damqanaysa oo naftooda ilaashanaysa oo wixii macaasi ah oo xumaan ah oo soo kordha ka dhiidhinaysa si xikmad iyo caqli leh uga hortegaysa arrintaasa ilaahay ku badbaadinaya asxaabu sabti markii ilaahay wuxuu ka xarimay ay dhacday in maxaan ku idhaahdaa dabashadii kalluunka ay ku kaceen qaarna waa la hadleen qaarna waa ka aamuseen falamaa nasuu maa dukiruu bih anjayna aladiina yanhawna cani suu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iis intii xumaha reebaysana ilaahay waa samata bixiyey intii kale lagama hadlin kuwii kalena ilaahay balaayo ku salliday subxaanahu wa tacaala markay baladu timaado waxaa la badbaadinayaa dadka wanaagga sheega xumahana celiya ayaa la badbaadinaya